halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. qabriga hooyadood ayay joogaan, halkan ayay hooyadood ku aasayaan, aadna ayay u murugaysan yihiin. ninkanna waxaa lagu magacaabaa Owen, isaga iyo walaalkiis aad ayay uga murugaysan yihiin dhimashada hooyadood. sikadiis ayuu wuxuu ku arkayaa Owen gaarigan halkan maraya, kadibna gaarigan ayuu fiirinayaa. waa ninkan iyo xaaskiisii oo gaarigii kaga xumaaday wadada. gaariga ayuu kasoo degaya ninkan, waxauna rabaa inuu gaarigiisii hagaajiyo. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Lily, waana xaaskiisii. Lily waa ay shakinaysaa, kadibna waxay fiirinaysaa kaynta. isla markiiba ninkan ayay arkaysaa kusoo socda ninkeedii, kadibna waxa uu bir kaga dhufanayaa madaxa iyadoo aad u qaylinaysa, iyadoo aad u ooyeysa ayay isla markiiba gaariga kasoo baxaysaa. kadibna waxay u imaanaysaa ninkeedii, waxay fiirinaysaa dilaagii, laakiin waa ay ka weynaysaa. ilaa markii dambe ay ninkeedii soo kor istaagtay. aad ayay u murugaysan tahay maadaama ninkeedii halkan lagu dilay. iyadoo ooyeysa oo qaylinaysa ayuu xagga dambe kasoo maraya, kadibna waa uu soo kaxaysanayaa. gurigiisa ayuu keenay, waxauna ku daldalayaa birtan idii muuqata, iyadoo labadeedii gacmood ay ka xiran yihiin. Owen aad ayuu u faraxsan yahay, halka Lily aad u ooyeysa oo qaylinayso maadaama ninkeedii la dilay. isla markiiba waxa uu sheegayaa inuu yahay nin dilaa ah, waxauna ku leeyahay waxaan cunaa hilibka dadka bini'aadamka, laakiin waxa uu sheegayaa inay sharcigooda aysan ku jirin inay cunaan dumarka hilibkooda. ciqaabo aad u daran oo kale ayay marsiiyaan gabdhaha ay qabtaan. waa uu kasoo baxaya ilaa markii dambe uu ilbaabkii kusoo xiray. xabsigan ayay ku jirtaa, kamana bixi karto. ninkeediina halkan ayaa la jidayaa meydkiisii, kadibna waxa uu saaranayaa meeshan dhagaxa. hilibkiisa ayuu halkan lagu jarjarayaa daawadayaal. dhowr bilood kadib maxaa dhacay saaxiibayaal? halkan ayuu caana ku shubaya, kadibna waa uu soo qaadayaa galaaska caanaha uu ku jiray. qolkan yarka ayuu soo galayaa. Lily ayaa halkan ku jirta, shabaqan ayuu u sameeyey, waxa ayna ku nooshahay nolol aad u bahdilan. waxa uu ka dhigay sida xayawaanka oo kale. shabaqan ayuu ku ilaashadaa, waxa uuna u adoonsaday si bini'aadanka bax ah. shabaqii ayuu kasoo saarayaa. Lily ma hadli karto, carabkeeda ayuu ka gooyey. sidoo kale saaxiibayaal, Lily uur ayay leedahay, isaga iyo walaalkiina waxa u yeeleen uur. noloshii oo dhanna waa ay ka quusatay. maxaa dhacay saaxiibayaal? dhowr bilood kadib, bilooyin kadib, waxaan arkaynaa gruubkan oo halkan ku safraya. waana wadadii ay ka ugaarsan jireen gruubkii aadka u halista badnaa. gaariga ayaa kaga gubtay halkan, motoorkiina waxaa ka kacay qiiq. waa uu kasoo degayaa, waxaan isku dayaya inay gaariga hagaajiyaan, laakiin waxay arkayaan inaysan taasi macquul ahayn. ninkan iyo saaxiibtii Taylor waxay isku dayayaa inay meesha ka tagaan si ay u raadiyaan meel gaariga lagu hagaajiyo. wadadii ayay soo qaadayaan, waxayna rabaan inay helaan wax caawimaad ah. kaynta ayay soo dhexgelayaan. labadoodii kale saaxiibana waxay kaga soo tageen gaariga si ay u ilaaliyaan, mana oga halistan aadka u daran ee meesha ka jirta. Gina iyo saaxiibkeed kaynta ayay soo galayaan, laakiin markiiba waxaa yeeraya gambaleelkan. kayntoo dhanna waxay ku xireen fiilooyin si markii ay dad u soo galaan ay u ogaadaan gruubkan aadka u halista badan. isla markiiba kaynta ayay soo galayaan, halka Taylor iyo saaxiibkeeda ay halkan lugeynayaan. welina waxay dhex socdaan kayntii aadka u halista badnayd, waxayna raadinayaan cid caawisa mar kale. ninkani waxa uu la dhashay Owen, waxa uuna arkayaa gruubkan. isla markiiba ninkani waa uu shakiyaya, waxauna gartay in la daba joogo. mar kale ayay wadadii soo qaadayaan, waxay arkayaan meeshan oo ah garaash lagu farsameeyo baabuurta. isla markiiba garaashka ayay gudaha usoo galayaan, waxayna rabaa inay helaan cid caawisa. garaashkana waxaa jooga saaxiibayaal Owen. ayaa la hadlaya, waxauna ku leeyahay maxaad doonaysaan? waxay u sheegayaan in gaarigoodii uu wadada kaga xumaaday. balse saaxiibayaal Owen aad ayuu u faraxsan yahay, waxauna rabaa inuu hilibkooda cuno. mishin ayuu la damacsan yahay, kadibna waxa uu ku leeyahay banaanka igu sugaa. Taylor iyo saaxiibkeed banaanka ayay fadhiyaan, laakiin Taylor waa ay caajisaysaa, waxayna soo galaysaa kaynta. saaxiibkeed waa uu dhibsanayaa maadaama uu muddo fara badan uu sugayay ninkan. kadibna gudaha ayuu geerishka ugu soo galaya, waxauna ku leeyahay waqti badan ayaan ku sugayay. laakiin Owen waxa uu sheegayaa inuu telefoon diray, kadibna uu imaanaya walaalkii si gaarigooda loogu soo hagaajiyo. waxa uu arkay isla markiiba fursad, kadibna birta ayuu soo qaadanaya ilaa uu markii dambe isagoo aan ogeyn madaxa ku dhuftay. Gina iyo saaxiibkeed halkan ayay joogaan, waxayna iska baaranayaan gaarigii, laakiin si kadiisa waxay arkayaan sawirkan meeshan yaala. waana sawir iyaga laga qaaday, waxayna ogaadeen in qof daba joogo uu ka qaaday sawirkan. isla markiiba geerishka ayay dib ugu soo laabatay Taylor, waxayna raadinaysaa saaxiibkeed. muraayada ayay ka fiirinaysaa ilaa markii dambe ay geerishkii gudaha usoo gashay. kadibna waxay raadinaysaa saaxiibkeed, laakiin markiiba Owen ayaa la hadlaya, waxuu ku leeyahay saaxiibkaas suuliga ayuu aaday. Taylor lama socoto waxa halkan ka jira. isla markiiba banaanka ayay soo baxdaa, waxayna sugaysaa saaxiibkeed. mar kale ayay kusoo laabanaysaa Owen, waxay ku leedahay aaway saaxiibkeed, laakiin markiiba wuxuu qoranaya waa uu imaanaya halkan iska fariiso. ookiyaalihiisa ayuu dhulka dhigtay, waxauna rabaa inuu fursad ku gaado gabadhan si uu iyadana u qaato. isla markiiba waa ay shakiday, laakiin markiiba bir ayuu madaxa kaga dhuftay. halkan ayuu kasoo laalaadiyay saaxiibkeed, gudaha ayuu ugu soo galaya isagoo aad u xanaaqsan, laakiin markiiba waxa uu ku leeyahay ma jirto cid halkan kaa badbaadin doonta. Gina iyo saaxiibkeed mar kale waxay arkeen sawirkan dhulka yaala, isla markiiba sawirka ayay fiirinayaan. aad ayuu ninkan u murugaysan yahay ilaa markii dambe Owen walaalkiisa uu yimi isagoo mindi aad u dheer wataa. aad ayuu u faraxsan yahay, waxaana uu soo carfaya hilibka dadka bini'aadanka. isla markiiba madaxa ayuu kaga dhuftay birtii, kadibna dhulka ayuu ku dhacaya, halka Gina ay ka carartay saaxiibkeed. Gina ayuu fiirinaya ninkan, waxauna rabaa inuu ka daba tago, laakiin waxa uu ogaaday inuu ninkan ka baxsanayo. isla markiiba ninkii ayuu soo qabanaya lugtiisii, kadibna waa uu ka jaraya lugta si uusan uga baxsan. ninkanna waa nin aad u naxariis
dhamaystiraan isla markiiba Gina ayuu soo baxsanaya waxayna isla soo galayaan kaynta waa ay ka cararaysaa Gina inta karaankeeda mana doonaysa ninkan inuu qabto halkan ayay kaga dhuumatay halka ninkii dilaaga ah uu raadinaya weli waa uu ka waayay markiina waxa uu dib ugu soo laabtay ninkii dhagaxna ayuu soo qaatay waxaana kaga dhufanayaa madaxa gaarigan ayaa halkan maraya waxaana wata Owen waxa uu socdaa gurigiisii ugu bishaareeyo inuu dad kale helay aad ayay u faraxsan yihiin maalinta hilibka bilaadanka helaan laakiin markiiba Gina ordaysa ayaa wadadii soo maraysa waxaana arkaysaa gurigan ilaa markii dambe ay maqashay guuxa gaariga wadada ayay soo galaysaa iyadoo ordaysa kadibna Owen ayaa arkaya waa uu istaagaya waxay noo sheegaysaa waxay aragtay oo dhan waxay ku leedahay meeshan iga badbaadi ma oga ninkan inuu yahay nin aad u halis badan laakiin Gina kama shakisana ninkan xagga dambe ayay iska eegaysaa ugu dambeyn gaariga ayay kasoo degeen waxa uuna keenay gurigii isla markiiba qorigiisa ayuu gadaal dama kala soo baxaya Ginana waxay kasoo degtay gaariga iyadoo gurigii gudaha usoo gashay isla markiiba waxay raadinaysaa telefoon ay ka wacdo booliska telefoonka ayay soo qabsanaysaa waxayna rabtaa inay booliska la hadasho ilaa markii dambe uu qoriga ku qabtay kuna yidhi telefoonka dhulka dhig iyadoo aad u baqsanaya telefoonka dhulka dhigaysaa waxayna ogaatay inay mishinkan dhexda kaga jirto isla markiiba waa uu soo qabanaya gabadhii waxa uuna keenay meeshii ay saaxiibteed ku xirneed labadoodiiba waa is ag fadhiisay iyagoo afka iyo gacmahaba ka xiran waxayna ku jiraan halis aad u daran aad ayay u baqsayeen waxa dhici doonaa laakiin ninkan halkan ayuu ku jajeysaya waxauna ku leeyahay waa aad noolaanaysaan ilaa markii dambe Owen walaalkiisu soo galay isagoo wada meydka saaxiibkood kadibna gacanta ayuu afka ka saaraya iyagoo arkaya ayuu u dilaya si aad u foolxun meydkiina halkan ayuu yaalaa aad ayuu ugu faraxsan yahay waxa uu samaynaya ninkan ilaa markii dambe uu soo jiiday meydkiisii waxa uuna soo saaranaya dhagaxii hilibka ku jarjari jiray way iska ooyeysaa Gina maadaama saaxiibkeed lagu hordilay Taylor iyo saaxiibta Gina waxay isku dayayeen inay meesha ka baxsadaan ninkan oo kaliya ayaa guriga looga tagay isla markiiba waa uu dareemay ilaa markii dambe isagoo ordaya guriga soo galay kadibna wuxuu arkaya kuraastii lagu xirxiray oo bannaan gadaashiisa ayay marayaan iyagoo ordaya waayna ka baxsadeen kayntii ayay soo galayaan iyagoo aad u ordaya waxayna doonayaan inay ka baxsadaan halkan si ay u noqdaan kuwo badbaada aad ayuu xanaaqsan yahay ninkan maadaama labadii gabdhood ee looga tegay ay ka baxsadeen birtiisa ayuu soo qaatay waxauna kasoo dabagalay kaynta Owen dib ayuu garaashkii ugu laabtay waxaanu rabaa inuu soo kaxayo ninkan oo halkan ugu xirnaa kadibna gudaha ayuu soo galayaa ninkii ayuu imaanaya waxaanu rabaa inuu meesha ka kaxeeyo Gina iyo saaxiibta Taylor oo ordaya waxay arkayaan ninkan taraaga wata waxayna rabaa inay meesha ka baxsadaan way u soo ordayaan ninkan ayaa arkaya labadan gabdhood ee kusoo socda isla markiiba u imaanayaan waxayna u sheegayaan waxay soo arkeen oo dhan waxa uu sheegay in saaxiibadoodii la dilay niman aad u halis badan ay gacanta ugu jiraan sheekadii oo dhan ayay uga sheekeynaysaa Gina laakiin markiiba waxa uu ku leeyahay aniga ayaa idin badbaadin doonaa gaarigiisa ayuu soo saaraya waxauna ku leeyahay soo baxa kadibna waxa ay soo fuuleen wadadii gaarigan ayuu jiidaya Owen walaalkiisa oo ordaya oo birtiisa wata ayaa kaynta soo galay waxauna weli raadinaya gabdhihii laakiin gabdhihii waxay saaran yihiin gaarigan taraaga ninkan ayaa yidhi aniga ayaa idin badbaadin doonaa waxayna ka sugayaan inuu meel fiican geeyo wadadii ayay soo qaadeen mana garanayaan meesha u socdaan ilaa markii dambe uu keenay meeshan garaashka ee baabuurta badan ay ka buuxaan waa ay shakiyeen markiiba kadibna gaariga ayuu kasoo degay ninkii waxauna soo qaatay baaskooladiisii isla markiiba uu yimi gabdhihii halka Gina iyo Taylor ay gadaal dama ka fiirinayaan waxayna arkeen inay halis ku jiraan gaariga ayay kasoo degayaan markiiba weli kaynta ayuu dhex ordaya waxauna raadinaya gabdhihii looga tegay ninkana waxa uu soo kaxeeyay labadii gabdhood si kadiis ayuu Owen ugu soo baxaya gabdhihii kadibna mid kamid ayuu qoorta ku dhufanaya waxauna kaga jaraya mindidiisii afka badnayd dhaawac aad u daran ayaa ku yaala Taylor weli mindidii ayuu la kor taagan yahay ilaa markii dambe Gina ay isku dayday inay saaxiibteed badbaadiso laakiin ninkan ayaa baaskoolada madaxa kaga qabtay halka Taylor ay rafaadsan tahay ilaa markii dambe uu soo xun u dilay isagoo hilibkeedii cadcad u jaray ugu dambeyn Gina guriga ayaa dib loogu soo celiyey kadibna halkan ayaa lagu soo xiray si kadiis ayay waxay arkaysaa gabadhan halkan fadhida isla markiiba gabadhii ay arkaysaa waxayna arkaysaa inay gabadhan uur leedahay Ginana waxay ogaatay haddii ay halkan sii joogto inay sida gabadhan oo kale ay noqonayso gabadhan ma hadli karto mana sheegi karto waxa ku dhacay sababtuna waa in carabkeedii la jaray Gina oo aad u naxsan ayaa fiirinaysa albaabka waxayna arkaysaa in loo soo geli doono waxayna ogtahay in loo soo geli doono ciqaab daranna la marsiin doono isla markiiba gabadhii ayaa xarigii ka furfuraysaa kadibna waxay ku leedahay mindidan hayso waa inay istifaacnaa meeshan ka baxnaa laakiin gabadhan gabar maskaxdeedii joogta maaha isla markiiba mindida ayay soo qaadaysaa waxayna iska gelinaysaa caloosha ilmihii ayay dilaysaa way isku naxaysaa Gina waxay gabadhan samaynayso wayna iska ooyeysaa ilaa markii dambe uurkii ay banaanka iska soo dhigtay kadibna waxay mindidii iska gelisay dhuunta aad ayay ooyeysaa Gina waxa ay samaysana ma garanayso mindida ayay ka saaraysaa laakiin markiiba ninka ayaa usoo gelaya naxdin dartii mindida ayaa ka dhacday aad ayuuna ooyaya maadaama uurkan isaga ay u lahayd gabadhan Gina ayuu soo qabanaya isagoo aad u qaylinaya waa uuna qaraacaya kadibna waxa uu jiifinayaa halkan waa uu iska ooyaya maadaama ilmihii caloosha ku jiray la dilay aad ayuu murugaysan yahay ninkan isla markiiba Owen ayaa guriga imaanaya isagoo gaarigiisii wataa isagoo ordaya ayuu Owen guriga soo galaya waxauna arkaya walaalkiisa oo aad u murugaysan halkana fadhiya ooyaya waxau arkay in gabadhii uurka lahayd ay isdishay halka walaalkii uu waashay maskaxdii iyo miyirkii dhanna uu ka tegay waxuu isku dayaya in walaalkii dilo laakiin walaalkii waa uu dejinaya
dejinaya waxa uu kuleeyahay istaji laabta ayuu gelinayaa. Jiina halkan ayay fadhida iyadoo afka iyo lugahaba ka xiran wayna aragtaa waxa ay sameynayaan nimankan. Intii ay isku mashquulsanayeen ayay ilbaabkii kasoo baxday waxayna doonaysaa inay baxsato laakiin markiiba waxay arkaysaa xagga dambe inuu saaxiibkeed ku jiro. Isla markiiba saaxiibkeed ayay ka furaysaa xargii waxayna doonaysaa inay meesha ka baxsadaan laakiin markiiba waxa uu kuleeyahay maya anigu meeshan kama tegayo waxaan doonayaa inaan aarsado. Saaxiibkeedna waxa uu qaatay go'aan aad u khaldan isla markiiba qorigan ayuu soo qaadanayaa gaariga ku jira waxa uuna doonayaa inuu nimankan laayo. Jiina waxay ku leedahay istaji waa inaan meesha ka baxsanaa laakiin waa uu ka diidayaa isagoo aad u xanaaqsan ayuu guriga imaanaya waxa uuna raadinayaa Owen inuu dilo. Isla markiiba Owen iyo isagii waa is arkayaan kadibna Owen ayaa bir ku dhufanaya laakiin markiiba qoriga ayuu qaadanaya waxa uuna dilayaa Owen. Isla markiiba gadaal ayay xabad kaga dhacaysaa waxaana dilaya ninkan oo ah Owen adeerkiis dhulka ayuu ku dhacaya. Jiinana waxay faas kaga dhufanaysaa madaxa ninkii dilay saaxiibkeed ninkiina halkaas ayuu ku dhimanayaa. Waxay u imaanaysaa saaxiibkeed kadibna waxay arkaysaa saaxiibkeed inuu aad u dhigbaxayo aysan badbaadin karin. Isla markiiba ninkan go'aan ayuu qaatay kadibna waxa uu soo gelayaa guriga ilbaabkan ayuu furayaa waxaana ku jira walaalkoodii saddexaad oo halkan muddo badan ay ku hayeen maadaama uu waashay sidii dadka bini'aadanka hilibkooda u cunayay kadibna uu u ekaaday qofkan bahalka. waxauna halkan uga soo furay in Jiina iyo saaxiibkeedba uu cuno. Isla markiiba waxa uu dhiiga ka jaqayaa Taylor saaxiibkeed aad ayay u ooyeysaa wayna aragtaa in saaxiibkeed dhiigeedii la cabayo. Isla markiiba qorigan ayay soo qaadanaysaa waxaana kaga dhufanaysaa madaxa waa ay kasoo cararaysaa iyadoo aad u ordaysa Jiina waxayna soo gelaysaa kaynta waa uu soo baxsanayaa. Isla markiiba gaariga ayay soo gelaysaa kadibna waa ay xiranaysaa gaariga. ugu dambeyn saaxiibayaal Jiina gaariga waa uu kacayaa. Jiinana halkaas ayay ku badbaaday wayna kasoo baxsatay nimankii halista badnaa. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalka fadlan muuqaalka like saar haddii ay tahay markii kugu horeysay aana soo booqatana channelka subscribe noo saar.